بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدنيال iyo marwooyin garadka Soomaaliyeed odayaasha iyo waxgaradka hogaamiyayaasha siyaasadeed ururada bulshada dhalinyarada iyo haweenka xirfadlayaasha iyo dhammaan walaalaha Soomaaliyeed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Mar labaad waxaynu maanta isugu nimid maaha in Soomaalidu ay ka maqan tahay fikrado ama aqoon. waxaynu isugu nimid sababtoo ah taariikhdu waxay gaadhay meel aan fikrado kaliya shaqaynayn. fikradaha waa in loo bedela istiraatiijiyad dadka mustaqbalkiisa iyo aayihiisa sugi karta inay meeshii doonaan ay gaarsiin karto. waxaynu ku sugannahay xilli aan caadi ahayn. nidaamka caalamiga wuu isbedelayaa. geeska Afrika waxaa ka socda isbedelo waaweyn. tartan cusub baa bilowday. tartankaas oo sababaya in la isku haysto marinadii biyaha, dekadihii, tamartii, khayraadkii dabiiciga ahaa, jihooyinka ganacsiga iyo siyaasadii guud. tartankan ma aha tartan ku kooban kaliya geyiga Soomaalida, waa tartan ka baxsan, waa tartan caalami ah, waa tartan goboleed, waa tartan degaameed, ama ha noqoto Soomaalida xorta ama Soomaalida gumaysiga ku jirta. isbedelo waaweyn baa socda oo saameyn ku leh noloshooda iyo jiritaankooda. waxaynu aragnaa dagaalo badan oo ka dhacaya meelo kala duwan, ama ha noqoto daafaha deegaanka geeska Afrika ama dalalka geeska Afrika gudahooda. Suudaan dagaal baa ka taagan, Itoobiya dagaal culus baa ka taagan. meelo badan oo deegaanka Soomaalida qabaa'ilkii baa la isku diro madaxooda gudahooda dagaalo ka dhacayaan. runtii ayaan darro ah oo loogu talagalay inay weliga dambe dab kala qaadan. sidoo kale Soomaaliya waad aragteen khilaafaad siyaasadeed, khilaafaad xukun, khilaafaad fikri, khilaafaad maamul baa ka jira. marka waxaasoo idil waxay keenaysaa kala qaybsanaan iyo dadka sii kala fogaada. waxaa jira cadaadis dhaqaale, waxaa jira hay-adihii jiri jiray ee Soomaalidu lahayd asalka ahaa, ama ha noqoto hay-adihii dhaqanka, ha noqoto dowladihii, ha noqoto ururadii, way sii daciifayeen. bulshooyinkii Soomaaliyeed iyo guud ahaanba dadka dareen kalena iyo jab bay u keentay arrinta ayada. dhibaato badanna way abuurtay. maanta waxaa weeyaan shirkanan isugu yeernay aqoonyahanka Soomaaliyeed shirkadiisa maaha, waa shir ka dhashay markaan aragnay duruufaha taagan iyo marxaladaha taagan in loo baahan yahay inaan dadkii Soomaaliyeed marka koowaad ku baraarujino xaaladdu say tahay, marka labaadna wixii talooyina iyo wixii maana iyo wixii aqli la iswadaarsan karo halkaa uu ka bilowdo. shirkan maanta bilaabanaya isbahaysiga shacabka Soomaalida ay ka tashiga oo ka halgamaya Soomaali galbeed ama Ogaadenya, oo ka kooban jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya, golaha qadiyadda Soomaaliyeed iyo isbahaysiga dimuqraadiga deegaanka Soomaaliyeed. shirkan ay qabteen wuxuu ku soo aaday marxalad taariikhi ah, waxaana dalbaya oo baahida loo qabo wadajir fikir iyo wada shaqayn ummadda Soomaaliyeed guud ahaan ka dhaxaysa, gaar ahaana dadka deegaanka degaa ee Soomaalida ah ee isku danta ah ee isku dalka ah. wada tashigan qaran ee hadda aan soo jeedinayno ee aan doonayno in aqoonyahanka Soomaaliyeed bal tashina aan la yeelano, isla markaana aan afkaar wadaarsano. sababaha ururka kaliya ka yimid maaha, hogaamiye kaliya kama iman, jiil kaliya kama iman. caqabadaha horyaala shacab weynaha way ka waaweyn yihiin in siyaasiyiinta oo kaliya wax ka qabtaan. waxaynu u baahannahay inaan dhaqaalayahanka ay ka fikiraan, waxaynu u baahannahay in qareenadu ay ka fikiraan, waxaan u baahannahay in dhakhaatiirtu ka fikiraan, waxaan u baahannahay injineeradu inay ka fikiraan, waxaan u baahannahay cilmi baarayaashu inay ka fikiraan, waxaan u baahannahay ganacsadeennu inay ka fikiraan, waxaan u baahannahay dhallinyaradeenna, haweenkeenna, odayaasheenna iyo qurba joogtu intaba inay eegaan siday ku sugan tahay Soomaali iyo mustaqbalkeeda. laakiin wax kasta waxaa ka horeeya oo loo baahan yahay daacadnimo iyo aqoon inaan wax walba ku salayno. labadan maalmood waxaynu ka doodi doonaa arrimaha ugu muhiimsan ee saameynta masiiriga shacabkeenna ku leh Soomaali ahaan, mustaqbalka Itoobiya, mustaqbalka nidaamka federaalka Itoobiya ka jira, xuquuqda aadanaha, xaaladaha maamulka, midnimada iyo dhulka Soomaaliyeed midnimadiisa, siyaasadaha geeska Afrika, maareynta khayraadka dabiiciga dalkeena, ilaalinta bulshada nugul iyo sidii aynu u dhisi lahayn hay-ado Soomaaliyeed oo xoogan, iskaashi istiraatiiji ay mid awood qaran wata
sidoo kale ummadda Soomaaliyeed walaalaheen si aan uga faa'iideysan lahayn ayagana dhibkooda aan uga qayb galnayn xalintiisa ma aha arintan dhamaantood waxay u baahan marka in la isku xirnaado waxay u baahan in la tashado waxaan doonaynaa inaan helno ra'yigiina waxaan doonaynaa inaan aqligiina helno waxaan doonaynaa in afkaartiina aan helno waxaan doonaynaa inaan idinla socodsiino xaqiiqada ka jirta geeska Afrika guud ahaan gaar ahaan dhulka Soomaalida Itoobiya maaragtay ku hoos jira ay gumaysato waxaynu halkan isugu nin marka in arintaas ma aha kaliya inaan sacbaan isu tunno inaan isu rixino ma aha inaan si dhab uga wada hadalno xaaladaha ummadeena hor yaalla iyo sidii looga bixi lahaa marka waxaynu u baahannahay siyaasad ku dhisan istiraatiijiyad taasaa marka waxaa keentay baahida shirkan maanta inaan qabanno oo aan idinka codsanno inaad talooyinkiina aan ogaano arintan saad la socotaan sheekadan ma bilaaban 2018 markii heshiiskii uu ka dhacay muxuu ahaa Itoobiya ee jabhadda waddanka xoreynta Ogaadenya ay la gashay Itoobiya heshiisyo ka horeeyay dagaaladii hore oo dhacay waa wax muddo hal qarni ah socda weeye yani khilaafka Soomaali ka dhaxeeya iyo maamulada Itoobiya isdaba yaalay ilaa minay bay taqnaayeen waxa weyn halgama isdaba jooga jiray mar waxay ahayd halgama Soomaaliyeed ka qayb galayso mar waxay ahayd halgalo jabhado gooni ay wadaan ma guud ahaanna waxa weyn saameyn ballaaran oo taban ay ku yeeshay shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaanba isla markaana waxa weyn uu soo dhaweeyay shacabkan in la ogaado qadiyadihiisa xuquuqdiisa halganku khasaaro ma noqon wuxuu keenay in qadiyadii Soomaaliyiinska ay fuusho maanta la aqoonsan yahay in meesha dhib ka jiro tijaabooyin badan baan soo marnay waan soo halganay waan xaajoonay nabad baan maaragtay ku raadin xaqeeni 92 waad ogeedeen dawladda u horeysay Soomaali ee Itoobiya markii u horeysay doorasho xor ah intay ka dhacday dawlad laga dhisay yaa dhacday way socon weyday dagaalo waaweyn baa ka dambeeyay dhowr iyo 20 sano socday 2018 heshiis baan galnay waxaan isku daynay in xal siyaasi la raadiyo muddo 7 sano ay halka daba soconay Itoobiya waxa dhaqankeedu noqday in heshiisyada markay gasho si selective ah waxyaabahan macnaheedu lahayn inay waan fuliyo tiraahdo inta kalena iska indha tirto way socon weyday maanta deegaanka Soomaalida waxa ka taagan muxuu ahaa nidaam aan shacabkii lahaa soo dooran oo aan u adeegayn dadkiisi hadda maanta waxaan loo sheegay shalay waxa dhacayay daraad weegan yani qabaa'il islaynayaan oo 20 iska dileen in maamulka gumaysiga askartiisa inta kale ayadana ay leynayso waxaad ka garanaysaa marka inuu maamul Soomaaliyeed oo danta ummadda Soomaaliyeed ka shaqeynaya haduu jiro shacabkiisa isma laayeen waxa loogu talagalay shacabka xuduudaha degan oo idil laga soo bilaabo ilaa halkaas xarshin laga gaaro ilaa muxuu ahaa ceel barde dadka xadka degan Soomaalida ama xadka Soomaaliya ku jiraan ama xagga ku jiraan inay islaan dabdaba kala maqaan si wardama dagaal gobolnimo loo wada gelin oo qabaa'il la sulaayay waxa sal u ah Soomaalidu marka waxa weyn si darada taagan khilaafaadka gudaheeda oo bay ku foortaa ma arkayso ciyaarta lucbada gameka state of game waxa la yiraahdo dushooda lagu ciyaarayo ee madaxa la isu gelinayo waxa kala socda Itoobiya lafteedii maanta waxa weey Itoobiya waxa la yiraahdo way isma haysato yani tiirarkii Itoobiya sheegan jiray yani nidaamka state-ka Itoobiya hayn jiray asalkiisu waa Amxaaro Tigray maxay Oromo oo calool u ahayd kulligood maanta ayaga foodas kula jira marka yani waxa weeyaan waxa socda isbedel weyn oo mihigaana ay Itoobiya ka socda nasiib daro shacabka Soomaaliyeed uma diyaarsana isbedelkaas bari hadii isbedel yimaadana meeshii qolo cusub intay qabsato meeshii ka bilaabaysa marka bal sidii aanu dadka Soomaaliyeed hadaan nahay aan koow danteena u garan lahayn marka labaad aan isu diyaarin lahayn oo isu abaabul lahayn isbedelka Itoobiya ku socda kaalinteen ka galeynaa ma qolo cusub intay timaado hadana noo yeerin doonto wiilal cusub wiilasheeda oo afxaariga qarintay noo soo magacooda hadana sidii nagu gumaysan doontaa bas waxaan ka qayb baan ka qaadan doonaa waxaan abuuri doonaa nidaamkan Itoobiya ka dhisan ku dhisan state-ka Itoobiya ee asalkiisu yahay wuxuu ahaa yani state gumaysi nidaam gumaysi ku dhisan oo ku dhisan midabta koor ku dhisan muxuu ahaa kalitashi ku dhisan shucuubta xaqooda la xaqiro isbedel miyaan ka qayb qaadan karnaa lagu bedelayo oo lagu bedelayo nidaam ogolaada xuquuqda shacabka nidaam ogolaada ee ka tashiga shacabka nidaam ogolaada dadku in ismaamulaan nidaam ogolaada shacabka waxay doonayaan in loo yeelo oo ayahooda ka tashadaan fursadaha abuuran maanta fursadahaas xageen ka galaynaa weeye haddaan awoodeena midayno haddaan xoog yeelano waxaa abuurmi kara inaan digteed garayno ama anigu aan yeerino oo aan qaabayno qaabka mustaqbalkeenu noqonayo
haddiise aanu iska sugno oo aanu u dayno maxaa wadciga iyo taariikhda inay muxuu ahaa ay wadaan yani ay qadiyadda ummadda Soomaaliyeed ayagu ay dejiyaan de weliga waana la gumaysan waana marban oo calaacalayna marka maanta fursadaas taagan waxaa kale taagan geeska Afrika oo ilaa isbedelaya waad aragtaan yani Ethiopia Sudan bay inta goona colaasatay Eritrea colaasatay Soomaali bay colaasatay waxa kala qaybinaysa oo badaheeda dagaalamaysa marka geeska Afrika oo ilaa joogu isbedel maanta fursada marka dahabi ah ayaa hor yaala ummadda Soomaaliyeed oo laba heer ah ka dawladda Soomaaliyeed maanta waa maalinkay lugaha isku duwan lahayd waa Ethiopia inta isku mashquulsan tahay inay soo ceshato saadadeedii ay midowdo ay walaalowdo oo ay Soomaali geeska Afrika maanta ay ka noqoto siday ka ahayd muxuu ahaa 40 sano 50 sano dawlad xor ah oo madax bannaan oo awood leh sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ee la gumaysto ee Ethiopia kuwaas nool ayagana fursad bay haystaan inay wax ka yeeriyaan mustaqbalka Ethiopia inay noqdaan quwadaha mustaqbalka wax ka tashanaya wax ka yeerinaya wax ka qaabeynaya ka dejinaya iyo inay noqdaan dad sugaya in berrito inta qolo kale markay timaado loo yeeriyo oo loo qaabay sida caadiga ahaan jirtay adduunka calaacal waxba kama shaqeeyo adduunka waa xaq baan leeyahay kama shaqeyso adduunka waxa ka shaqeeya muruqaaga maskaxdaada iyo istiraatiijiyadaada marka maanta fursad baan haysanaa qoliyaha maamulka sheeganaya waxa way og yihiin berri haddii isbedel yimaado ayaguna meesha ka baxayaan kuwa kale ayaga la keenayo marka hadday ka dhab tahay erayada ay ku hadlaan markaan dhageysanayno oo ay leeyihiin dadka dantii Soomaaliyeed baan haynaa maanta ay u baahan tahay tashi way u baahan tahay waxay u baahan tahay maanta in dadka loo diyaariyo isbedelka imaanaya marka isbahaysiga muxuu ahaa shacabka Soomaaliyeed ee ay ka tashigu gooshan wuxuu u fidiyay aqoonyahanka Soomaaliyeed fidiyay bal inaan qiimeeyno xaaladda geeska Afrika inaan qiimeeyno sideen wax uga bedeli karnaa maxaadna lagu korinay aqoonka Soomaaliyeed ama ha joogo Soomaaliya ama ha joogo Djibouti ama ha joogo muxuu ahaa qaybaha kale ummadda Soomaaliyeed degan tahay see aan wadciga maanta Soomaaliya hortaagan wax uga bedeli karnaa maxaan casharo siyaasadeed ka barnay taariikhdan soo marnay muddada taxanayd halgamadeenu ilaa Axmed Gurey bay taxnaayeen marba heer baan maraynay maraan wada jirahayn maraan kala soconay marba noocan maraynay maanta fursado waaweyn waan haysanaa khataro waaweyn fooday nagu hayaan haddaan ummadii Soomaaliyeedna marka ban in la tashado oo talo muxuu ahaa wax ku oola oo ay ku shaqeeyaan waxgaradka Soomaaliyeed ama jabhada ahaadaan ama dawladda xukumaan ama gobonimo doon ahaadaan marka taasa maanta loo baahan yahay taasaan idinka sugaynaa waxaan doonaynaa inuu shirkan ka soo baxo afkaar wax ku oola oo ummadda wax u tarta oo berri mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed u aydo walaalahan Soomaaliya ku nool ee xorta ah xorriyadii waxa weeyaan sidii muxuu ahaa dhurwaagi yiri wardaanyeerkuna hilibka dabada ku wata anna meel ka gaaran laahay waranaguna xorriyad meel ka gaaran laana idinkuna waxa dabadaas ku wata markaas idinka iscunaysaan idinku laftiin waxaad u baahan tihiin dib u tashataan waxa weeyaan hadii maxmiyada yaran idin abuuro oo sida khaliijka oo kale 10 kilomitir bal yiraahdo boqor hebel baa haysta oo intii shidaalkiin iyo kheyraadkiina marka saa lagu dhooqada doonaysaan deesaa ku sii socda hadda doonaysaan ummad qiimo leh oo dhulkeeda difaacan karta oo mustaqbal inaad noqotaana dib isugu noqda waxba ma taray diyaarad yar oo taad fuusho madaxweynaha tahay lagu yiraahdo waxa ma tarayso madaxweyne waxa weeyaan ninka dalkiisa dantiisa ka shaqeeya oo meel gaarsiiya annagu haddaan Soomaalida nahay Soomaali galbeed ama ogaadaya walaalahin baatiin midnimadina jecelnahay walaalnimadina jecelnahay waxaad ku heshiinaysaan yaan jecelnahay annagu waxba idinma tilmaamayno laakiin wayna xanuujinaysaa kala fadhigiina meelaha ka dhacaysaan meelaha halisaad ka dhacaysaan waad sii fogaanaysaan taana ayada lafteedana wixii tala ah walaalahan ku biirin karna waan u baahanay inaan u jeedino aad soo jeedisaan waxgaradka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leenahay qabyaalad waad aragteen waxay Soomaali meesha dhigtay waad aragteen qabiil meel nama geynayo waxa uu ummadnimo ayaa qiimo ku fadhida adduunka institutions baa xukuma xisbiya xukuma qabiil ma xukuma adduunka meel qabiil dawladda wax xukuma jirto dawladda ya la tartamaysa adduunka xisbiya la tartamaysa xisbiga dimuqraadiga xisbiga republicanka xisbiyada muxuu ahaa PPO Ethiopia xisbi way adduunka xisbiya ka shaqeeya xisbiya samaysta xisbiya dhawaha noqdaan oo mabda ku shaqeynaya oo aan reer hebel ahayn nin walba inta reerkiisa meel ku ursadana xisbi reer hebel aan ahayn xisbi ummad mathalaya oo afkaar ku kala duwan taasa horumar lagu gaara institutions dawladeed baa horumar lagu gaara reer meel ma gaarayo reer waxba iskama celin karo waxa weeyaan walaalka oo gaajaysan ma dhergi kartid ama wada gaajaysanaysan ama wada hormaraysaan
taasna si guud ummadda Soomaaliyeed baan soo jeedinaynaa marka waxaan u baahanahay marka inaan khibradii aqoonyahanka Soomaaliyeed uu balaaran yahay dadka Soomaaliyeed dad maskax badan way waa dawladda kale hogaamin karaan marka ayagu soo yimaadaan bay waxba hogaamin karaan laakiin haday meel kale tagaan madax bay ka noqonayaan dawladihii waaweynaa bay baarlamaanka ka galeen oo ka hormareen dadka kale Afrikaanka ah meelaha kale markay tagaan meel walba tagto ganacsiga ayaga xukuma Afrika oo ganacsiga Soomaaliya maanta xukunta meel kasta oo tagaan wasaas kale way haday America tagaan haday Yurub tagaan waa dad muuqda way laakiin marka ayaga soo yimaadaan bay noqonayaan maarif muxuu aha dooli muxuu noqonayaan jiir bay noqonayaan marka taayadana waxa bal dib isugu noqda guud ahaan marka waxaan u soo jeedinayaa aqoonyahanka Soomaaliyeed ee walaalaheena wixii afkaar inuu soo jeedin karaan in haddaan ku noqdana waxaad ogaanaysaan xaqiiqada maanta ka jirta adduunka waxa weeye adduunka isbedel baa ka socda geopolitics ku arkaysa khaliijka waxa ka dhacay geeska Afrika waxa ka dhacay dawladihii gudaha geeska Afrika ku jiray waxa ka dhacay arkaysa isbedelkaas xageen ka galeynaa dhulka Soomaaliyeed waa qani weey hadii la yiraahdo dhulka Soomaaliyeed geeska Afrika shan markii loo qaybiyay laba Soomaali waa iska leh dhulka ugu khayraad badan weey bad beer biyo xoolo macdan wax ka maqan ma jiro laakiin maankii ayaa meesha ka baxay marka waxaan u soo jeedinaynaa dadka Soomaaliyeed in dibaankooda Ilaahay soo celiyo insha Allah Ilaahay baan ka baryaynaa inuu aqliga noo soo celiyo in midnimo uu noo soo celiyo in cudurkan hay Ilaahay naga saaro shuusho bax baan leenahay waxaan aaminsanahay midnimada ummadda Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed in xaq u leeyihiin nolol nabadgelyo ah oo xor ah oo madax banaan oo ay aayahooda kaga tashanayaan inay ku noolaadaan waan ku dheeraaday wabillahi tawfiiq waxaan rajaynayaa insha Allah in ummadda Soomaaliyeed sidan si ka fiican shirka ku xiga oo iyadoo aan shirkeena labaad qabsano. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi